الرحمن الرحيم halka maanta waxaan ku qabanaynaa shir jaraa'id daana xisbiga wadajir oo naga hadlayno xaaladda dalka uu marayo gaar ahaan xaaladda amniga siyaasadda iyo dhaqaalaha intaba waxaan rabnaa inaan diiradda saaran si gooni ah xaaladda amniga oo maalmahan si aad ah uga soo dartay runtii moodana inay joogto faraka bax waxaan rabnaa inaan xoogga saarno sida ururka al-shabaab uu u xoogeystay dalka gudihiisa sida uu gacanta ugu dhigay awoodda amniga iyo hay'adaha amniga oo dhan iyo sida ay ula wareegeen maaragtay talada maxaan ku sheegay dalka dhinaca ammaanka waliba gaar ahaan gacanta ugu qabsadeen oo ay noqdeen urur meeshay rabaan waxay rabaan ka fuliya dekada iyo hay'adaha dawladda ee kala duwan iyo qaybaha kale waliba dakhliga dhaqaalaha la xiriira siday rabaan uga qaata canshuurta xogtaas oo dhan aan rabnaa maanta inaan ka hadalno iyo xaaladda ay marayso ah runtii xaalad aad u adag waxaa la socotiin al-shabaabku inay aad u dhex galeen hay-adaha dawladda gaar ahaan kuwa amniga iyo hay-adaha dakhliga sidoo kale waxaan la soconnaa oo dhammaanteena ogtihiin inay canshuur ka aruursadaan qaybo kala duwan oo ka mid ah ganacsiga dadweynaha Soomaaliyeed iyo meelaha ay dawladdu gacanta ku hayso ugu weyn tahay dekada ay ugu horeyso waxaad ogtihiin in al-shabaab ay canshuur ka qaadaan container kasta oo dekada yimaada oo xogta aan haynana ay sheegayso inay containerkii 40 feet ahna ka qaadaan $160 kii 20 feet ahna ay ka qaadaan $100 waxay kaloo al-shabaab ku helaan xogta la xiriirta arrimaha dhaqdhaqaaqa dekada oo waxay awood u leeyihiin sida aan xogta ku hayno in ay helaan waxa ka soo dega dekada waxa ka soo degaysa ogtihiin mara shirkadaha soo rara alaabta shirkadda Turkiga ee Albayrak ee dejisa dekada gacanta ku haysa iyo kuwa xamaalka dekada ka dhura inta ka rara saddexdaasba biilasha ay ka soo dejiyaan dekada al-shabaab gacanta ay ku haystaan waxaan haynaa oo la kulanay ganacsato Soomaaliyeed oo markii la weydiiyay inay bixiyaan dakhliga ama cashuurta ay shabaab ka rabaan la soo hordhigay wixii ay dekada kala soo degeen oo la yiri waxaana la soo degteen al-shabaab hadda waxay marayaan in meesha la yiraahdo tuulada Mubaarak la yiraahdo qof kasto ganacsada wax la soo dega file looga furo registration number la siiyo file halkaas uu ku leeyahay ay hadda ay maraysaa waa arrin runtii aad iyo aad looga naxo waxay kaloo marayaan inay qaadaan waxa la yiraahdo domestic revenue canshuur aruurin gudaha dalka ah oo ay ka qaadayaan dalagga beeraha sida liinta la dhoofiyo oo ay ka qaadayaan xoolaha la dhoofiyo oo ay waxay kaloo awood u yeesheen in contract kasta ama qandaraas kasta oo la galaa inay 5% canshuura ay al-shabaab ay ka qaadaan ma jirto nootaayo magaalada ku taala oo kala wareejin karta dhul ayadoona al-shabaab laga siinin kadkooda ama dhiilkooda baabuurtii gobolada aadaysa waxay ku guuleysteen inay ka soo leexiyaan jidadka ay kontroolaan dawladda ay u soo leexiyaan deegaanada ayaga ay gacanta ku hayaan si kaligood uga qaataan canshuurta waxaan ognahay hay-adaha NGO-yada ka howlgala dalka inay 30% hawsha ay qabanayaan ay ka qaadaan canshuur ah ay ka qaadaan waxaan ognahay inay odayaashii soo xulay ergooyinka u yeereen oo ay ku yiraahdeen waxa linka rabaa hal qoray 4 boosh oo toobakeen ah inaad keentaan waxaan ognahay inay qabiilooyinka Soomaaliyeed heshiis la galayaan waxaan ognahay in dhaqdhaqaaqyada xagga dhaqaalaha bangiyada iyo xisaabaadka xawaalada oo dhan ay gacanta shabaab ay ku haystaan waxaan ognahay in oo xogteeda aan haynaa in ay shabaab dadkii qaarna handadayaan qaarnaba dhaqaale hadda ay ku iibsanayaan oo hay'adihii dawladda dhexdooda awal waxay ahayd inay dadka handadaan ama ay dilaan hadda waxay ku soo kordhiyeen inay dadka iibsadaan oo ay lacagta ay ka helaan dakhligaas oo dhan ay dadkii ugu fududeeyaan waxa ay rabaan waxaan haynaa in al-shabaab bishii 20 ilaa 30 milyan inta u dhaxaysa canshuur ah ay qaybahaas kala duwan ay ka aruursadaan waxaan ognahay in ganacsada Soomaaliyeed arrintaas dawladdu uga dacwoodeen oo ay dhaheen arrintaa wax ka qabta dawladdu ka dhiga furaysatay
taleefanada ay ka soo diraan shabaab haddeertaan dadka markay wacayaan ma qariyaan nambarkeeda dowladda loo geeyey aysan tallaab ka qaadaynin ganacsatada samaynaysa registrationka ama isdiiwaangelinta xagga canshuuraha mubaarak ka samaynaysa jagboontiyada ay dhaafayaan kuwii dowladda ay yihiin oo aanan waxba laga qabanaynin oo arrintaas ay xaqiiqo tahay waxaan ognahay in la hordhigay dowladda taleefanada dadka soo wactama oo soo waca dadka ganacsatada oo la yidhi waa kuwan dadkana soo waca taleefanadoodana ma qarsana oo wax tilaaba ilaa hadda dowladdu aysan ka qaadin waxaa marka shaki weyn ugu dhaliyey waxa dalka ka socdaa ma lays og yahay shabaab iyo dowladdu ma dad xiriir oo is og oo wada shaqaysanaya mise tabardarro ayaa intaas keentay dowladdii inay heerkaas ay gaarto oo ay shabaab dalkii ay ka taliyaan allah u naxariistay guddoomiyihii gobolka oo halkaa mar kale uga tacsiinayna markii la dilayay guddoomiyaha gobolka isagoo xaafadda wardhigley oo haweenka ama dadka shacabka la kulmaya laguma dilin isagoo xaafadda holwadaag joogo oo la kulmaya garoon isbatiiro cayaar ku jira laguma dilin waan ognahay yariiso nin dhaqaaq badan oo socod badan oo dadweynaha aad ugu dhex jiro ahaa laakiin waxaa lagu dilay xaruntii gobolka dhexdiisa lagu dilay waxaas waxaa la yidhaahdaa waa taxaddi ama waa challenge wax la yidhahda waa car inay ashaabna leeyihiin oo aysa xataa qofkii ku beegsanayaan meeshii ugu dambeysay ee nabadgelyadiisa iyo securitygiisa ama ammaankiisa oo ku ilaasho lahaa ay ku beegsanayaan ay xataa bannaan ka raadsanayeen haddeertan waxaasoo dhan waxay keeneen waxaa keenay dowladda oo wax istiraatiijiyada dagaalan al-shabaab aanan lahayn oo wax aragtiya oo ay kula wajahaysa shabaab aysan jirin xajmiga iyo culayska ka imaanaya cadowga dadkeenii maanta nin doorkoodii ama hablahoodii doorka ahaa gumaadaya wax ay ka qabanayaan aysan jirin dowladdu waxay ku mashquulsan tahay siyaasiyiin inay la dirirto baarlamaan inay kala qaybiso maamul goboleed inay dumiso hawshii loo igmaday shacabka soomaaliya u igmadeen kuma mashquulsana dadka soomaaliyeed dadweynaha soomaaliya marka waxaan leenahay waxaa linkaga baahan yahay indhaha inaad kala furtaan oo cadowgan ini xasuuqaya iyo midka idii hodaya inii maaragtay hoosaasinaya labadaba inay isku mid yihiin inaan ogaano oo aan usoo wada jeesano sidii aan tallaab arrintaas uga qaadi lahayn hadday dowladdu ama hoggaankeeda suuragal maaha xaflado iyo munaasabado iyo casho sharaf iyo qada sharaf iyo filin inta iga qaad iyo xaggaan maray cadowgaa mid lagu wajihi kara maaha cadowgaa dadkii oo gumaadaya shacabkii oo laynaya wuxuu u baahan yahay istiraatiijiyad iyo aragti iyo hoggaano u baahan yahay dadku waa inii diyaar qof kasta inla diyaara maamulada gobollada inii diyaara laakiin waxa aad ka shaqaysaan maaha wixii dalkan lagu hoggaami lahaa shacabka soomaaliyeed waxaan rabnaa mas-uuliyada naga saaran inaan u iftiimino waxa socda oon u kala saarno waxa mugdiga ah iyo waxa dhabta ee xaqiiqada ah nabigeennana wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam alraa'idu laa yagdabu ahlahu qofka hogaamiyaha dadkiisa been uma sheego mana habboona dadka soomaaliyeed in dhalanteed iyo maaweelo been ah iyo riwaayad been ah in loo jilo iyadoo shalay aaskii aan u taaganahay guddoomiyaha hore ee gobolka oo meydkiisii yaallo ayaa waxaan dhegaysanaya wasiir ka mid oo le amniga waa sugan yahay oo weliba kuwa amniga ka shaqeeya security-ga oo meel ku hayo amniga dalka waa sugan yahay ma aragtay nabadgelyada taagan oo kaamarooyinka horleeyahay iyadoo aan u taagannahay meydkii maaragtay iyo tacsidii guddoomiyaha aan u taagannahay oo weliba musawirtii iyo baantii xataa tacsidii korkeedii lagu wado arrimaha siyaasaddana waad la socotaan xaaladdeeda meesha ay marayaan waa xaalad murugsan haddaan ka bilaabo galmudug waxaa la socotiin dowladda in muddaa inay ku mashquulsaneed siday u dumi lahayd maamulka galmudug siday ahlu sunno iyo maamulkii galmudug ee madaxweyne u kala dhantaali lahayd guushaas way gaartay laakiin maanta waxaa hor yaalla guushii dhismaha inay la timaado inay wax dhisto dowladda waa arag 2 sano iyo bar la soo dhaafay inay duminta qabiiro ku yihiin waa aragnay karti badanna sida wax loo dumiyo iyo xirfadeeda ay leeyihiin laakiin maanta waxa hor yaalla waxa waaye siday wax ku dhisi lahaayeen waxaa wax lala yaabo ah inay hadda ku mashquulsan tahay dowladdii shaqadii uu qaba lahaa maamul goboleedka galmudug la dhisi doono ama kii dhisnaa hawshiisa ama mid kala dhisi doono hawshii uu qaba lahaa in ciidan la isku dhafo in amni la sameeyo in nabadgelyo galmudug laga sameeyo waa hawsha dadku ay u samaysanayaan maamulka dowladdu meeshii ay ku mashquulaan dhismaha maamul galmudug waxay ku mashquulsan tahay ciidan in la isku dhafo ahlu sunno ciidanka laga wareejiyo dowladda la hoosgeeyo ciidan la isku daro waxaasoo dhan macnaheeda waxaa waaye aan abuurno meelaha annaga xukunno annaga aan kontrolno ujeedku waa sidaas ujeedku ma aha maamul daafurnaan oo dabacsan oo dadka ay u dhan yihiin hala dhiso loo dhan yahay maaha ujeedkeeda waa annaga aan gacanta ku dhigno marka hore security-ga iyo meesha sidii aan rabno aan ka yeelno
waxaan ugu baaqaynaa dowladda inay xoogga saarto howlaha loo igmaday oo inay gacan ka siiso dadka reer mudug inay galmudug inay dhistaan maamulkooda ma aha hawshii maamulka uu qabo lahaa inay ku mashquulsanaadaan waxaan ognahay dowladdu inay xasaasiyad ka qabto shirarka dib u heshiisiinta ee ka socda deegaanka oo aysan wax taageero ah aysan u fidinaynin oo ay ku howlan tahay kala geynta dadkaas talada iyo wadatashiga u jooga waxaan dowladda leenahay waxba sasa ka qaadinina inay dadku deegaanka tashadaan oo ayahooda ay ka tashadaan oo ay danahooda ka tashadaan uma baahnidi inaad ka sastaan waa inaad gacan ku siisaan waxaan sidoo kale rabaa inaan ka hadla arrinta Jubbaland oo dowladda aad moodo inay shaqo ka dhigatay inay doorashada Jubbaland ka soo saarto madaxweyne ayaga ay wadato ku kalsoonaalaadahay systemkii u yaalay dowlad goboleedka Jubbaland oo baarlamaankii iyo golihii fulinta iyo guddigii doorashada hawsha ay wadaan in ay ku kalsoonaalaadahay oo har iyo habeen ay ka shaqaynayso sidii baydhabo oo kale inay adeegsato ciidamo dowladaha dariska qaarkood waxaan ugu digaynaa dowladaha dariska qaarkood oo shaki badan ka soo ifbaxayo inay rabaan dhaqankii baydhabo oo kale ay la yimaadaan inay arrinta Jubbaland howlahaas faragelinta guracan ah ay la faragalaan amisom waa inay ku akaataa mandate-ka ay dalka u joogto ah nabad ilaalin dadka deegaankana ayagay u daysaa inay isdoortaan wixii ka qaldan Jubbaland guddigeeda doorashada ama hanaankeeda doorashada waa in loo daayaa Jubbaland inay xalisato maaha inay dowlad ajnabi ah ama amisom ay faragelin guracan ay ku sameeyaan waxa amisom gadaal ka riixayna waa ognahay waa dowladda federaalka oo rabta in loo jujuubo Jubbaland sidii loogu jujuubay baydhabo oo kale ama koonfur galbeed marka waxaan bogaadinaynaa runtii Jubbaland inay doorashadii ku qabsoontay xilligaas oo ah xilligii ay dhamaadeen mandate-ka hay'adaha dastuuriga ah ee Jubbaland oo baarlamaankii iyo madaxweynihii xilka ka dhamaaday ay diyaar u yihiin inay qabtaan xilligii doorashada loogu talagalay dowladda federaalka mas'uuliyaddeedu waxay inay gacan ku siiso maaha inay carqaladayso ama fidno ka dhex abuurto ama qabaaisha ay isugu dhiibto colaad iyo fidno ay ka dhex horiso wax habboon ma aha marka waan soo dhaweynaynaa habsami socodka hanaanka doorashooyinka Jubbaland waxaan leenahay wixii reer Jubbaland ka qaldan dhexdooda inay ka saxdaan yaa laga rabaa dowladana aan uga digayno waxaan kale uga digaynaa dowladaha hantida iyo maalka meesha ku qofaya oo daba taagan ashqaas ka tirsan hay'adda nabad sugidda ee rabta inay Jubbaland ka sameeyaan fidno hor leh Puntland waxaa ugu tahniideynaynaa munaasabadda 21aad ee kasoo wareegtay asaaskii Puntland sida nabadda ah ay u dhacday munaasabadaas iyo hanaanka dimuqraadiga ah ee nabadda ee deegaankaas ka jira runtii waa mid ku dayasho mudan inay maamul goboleedka kale heerkaas soo gaaraan ujeedka nidaamka federaalka ah ee Soomaaliya runtii annaga xisbi ahaan waan aaminsanahay falsafada iyo hanaanka federaalka inuu yahay midka maanta Soomaaliya salka loogu dhigi karo ujeedkiisana waa in dal kale tagay la isku haya ama dal isku imaanaya dal la isku keeno dal kale tagay la isku keeno nidaamkaas federaalka ah Soomaaliya oo federaal ah oo dimuqraadi ah oo la xurmeeyo oo maaragtay member responsible ama xumin mas'uul ah baash adduunka ka ah in la helo ayaan u baahanahay dowladda waxay kaloo runtii ay ku fashilantay waa arrimaha la xiriira doorashooyinka ilaa hadda 3 sano dhamaan rabto oo sanadkii saddexaad dhamaadkiisii aan taaganahay wax aragti ah oo ay dowladda doorasho ka leedahay ma hayno ilaa hadda waxay soo bandhigi laadahay hanaanka doorashada iyo qaabka doorashada ay ku dhacayso iyo weli waxay nagu wadaa dhalanteed ah doorasho qof iyo cod la qabanaya haddii la qabanayo muddada la kordhinaya doorasho qof iyo codna ka shaqeynayso waxa ay rabto kaliya waa in muddo loo kordhiyo muddo korosina meesha wax rajo ah maamuladii la dhisay sidii dowladda Soomaaliya loo bilaabay ee laga soo bilaabo Carta ee lagu xijiyay Djibouti 2 oo lagu xijiyay kii dalka gudihiisa waxa sheekh gudoomiye madaxweynaha ka ahaa mid maalin loo kordhiyay ma jiro marka madaxweyne farmaajo iyo qolada la joogta inay ku riyoodaan muddo kordhin maaha wax aragti ay ka hayaana ma jirto arrinta doorashada sidaas daraadeed xisbiyada qaranka iyo maamul goboleedyadaba maraan dheereen insha Allah waxaan rajaynayaa watashi arrintaas ka galaan oo hanaan doorasho oo dalka doorasho looga galo la keeno ayaan rajaynaynaa waxaa lamid ah arrimaha dastuurka oo wax ka dhaqaaqay aysan jirin oo ilaa hadda tilaab loo qaaday dib habeyntii dib u eegidda dastuurka iyo howlihii muhiimka ah ee dastuurka la xiriiray oo dalka laga qabtay lama arko haddaan dastuur wax laga qaban dib u eegistiisa oo doorasho iyo diyaarinteed wax laga qaban
oo amnigii midka aragteen oo gacanta ka baxay uu yahay oo dowladdii xiriirkii ayadii maamul goboleedyada halka uu taagan yahay aan u jeedno oo ay noqotay xaaladii amnigana mid faraha kasii baxaysa maalin ka dambeysa waxaan la yaabanahay waxa dowladda hadda jirta 3 sano ayada u dhamaatay ay dalka qabatay iyo waxa ay ka qaban rabto iyo waxa ay noo sheegi rabto on ka ahayn dhalanteedka iyo riwaayadda iyo shineemada laga dhigo maaragtay social media laga dhigo iyo kelmiyada yar ee cajaladaha quruxda badan ee la soo duubo iyo waxyaalaha xafladaha habeenkii iyo maalintii sida qurxan loo xardho waxaan ahayn oo dalkan loo haayo runtii ma jirto ummadda Soomaaliyeed bumaada ayaa ku socda dhibaato weyn ay wajahayaan dhaqaalihii yaa ka xiran oo saameyn baan ku yeesheen jidadka xiran waxaa la soconaa ganacsada iyo dadka ganacsada markaan la sheekaysanay in 50% in ka badan hoos u dhac uu ku yimid arrimihii dhaqaalaha iyo horumarkii ganacsiga inta uu ku yimid sababtana ay tahay canshuurta labada dhinac laga qaadayo jidadka xiran noloshiyo cakiran dadkiyo tabar iyo awood u yeelan kari inay wax iibsadaan ama xataa dhaqaaqii ganacsiga noloshoodii ay abuurtaan oo dadkii maalgashiga la imaan lahaa ee Soomaaliyeed ay dhamaantood xiraan ay ka cararaan ay ku dhiiro waayaan inay sameystaan ganacsigii waxaan rajaynayaa deegaanada nabadda ah ee Soomaaliyeed in maalgashigaas ay dadka Soomaaliyeed u wajahaan dibadda dalka ula cararin oo Kenya iyo Ethiopia iyo wadamo kamid intii gal lahaayeen deegaanada nabadda ah ee Soomaaliyeed kale inay arintaas ay geeyaan marka waxaan ugu baaqayaa marka ugu dambeyntii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah iyo dadka hadda filla Soomaaliya xukunkeeda haya inay runta u sheegaan ummadda Soomaaliyeed ma dhici karto madaxweynaha waxaasoo wax inta dhacaan oo dhibaatadaas dalka ay ka jirto oo la arkaynin oo la laayahay oo meel jaani cirib dhigay dalka aan la ogeyn oo la arkayo kaliya markii ay janaasad timaado kaliya oo soo baxo maaha madaxweynaha asaa dalka loo doortay waa inuu banaanka yimaada waa inuu dadka la hadlaa asaga hoggaanka dalkan 4 sano madaxa saarto mandatekeeda qaatay inuu ka dhunto maaha mas'uuliyadda oo uga tago wiiladeeda dhalinyaro ah sidii filmaantii actors meeshan ka ah maaha madaxweynaha waa inuu soo baxaa oo mas'uuliyadda dalkan uu qaata ummadda Soomaaliyeedna waa inay karti u yeelataa iyo awood ay ku xisaabtanto oo codkooda ay ku muujiso ay dawladihii kuwan ka horeeyay waa la xisaabtami jiray waxa oo waa la qabsan jiray markii amni darro iyo xaalad xun dhacdo cadaadis la saari jiray madaxda cadaadiskaas keeni jiray inay dadka hoggaanka amniga ka ah wax ka bedelaan oo hanaan cusub ay la yimaadaan oo ay dhiig isgeliyaan ay isku dayaan xataa inay wax qabanayaan laakiin hadda waxa soo baxday wax kasta oo la sameeyo inaan juuq laga lahayn ciidan kale ay jirin taas anaga ku dhamaanayna idinka shacabka ku dhamaanaya ummadda Soomaaliyeedna ku hodmaysa taas la rabaa inaan iska joojino oo u soo jeesano runtii inaan la xisaabtano qoladan talada haysa hadiina xisaab iyo wax noo haynin marka xisaabtanana aan isku tashano oo aan talo qaran iyo talo umadeed iyo talo Soomaaliyeed oo isku nimaadno dadkan waa dad karti leh dad noocaan oo kale taa qaab daran hore isaga xoreeyeen noocay rabaan ahaadaan horeyna taladooda iyo ayatiinkooda ay u soo haysteen marka shirkaas jiraayadaha maanta inaan qabano waa maasantii